waa dhacdo naxdin leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Aabe Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nuur Xasan oo naafo ahaa ayaa 16 toorey waxaa ku dhuftay nin isaga u shaqaynayay isagoo waliba qolkiisa ku jira. Aabahan ayaa dhiigbax u dhintay. Haddaba dhacdadan ayaa barnaamijkeena maanta aynu ku qaada dhigi doonaa. Ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda galin, haddaad boggan ku cusub tahay falowdhe siina sheer gara asxaabtaadana la sii wadaag. kusoo dhawaada barnaamijka. Allah ha u naxariistee Aabba Nuur Xasan oo naafo ahaa ayaa 16 toorey lagu dhuftay isagoo ku jira qolkiisa isla markaana jiifay. Nuur Allah ha u naxariistee ayaa u geeriyooday dhiigbax ka soo gaaray tooreydii lagu dhuftay. nin la sheegay inuu qolka kula jiray isla markaana u shaqaynayay ayaa toorey ku dhuftay 16 toorey. Meydka Aabba Nuur oo dhiigbax u dhintay ayaa laga soo bixiyay qolkiisa, waxaana goobta ka baxsaday ninkii dilka u geystay Nuur. Nuur ayaa gacmaha iyo lugaha naafo ka ahaa. Goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa ka muuqday dhiig aad u tiro badan maadaama marxuumka xilli habeenimo la dilay isla markaana meydkiisa laga soo bixiyay aroornimadii. Dhacdada naxdinta leh waxay ka dhacday degmada Dharkiinley ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaana goobta isugu soo baxay dad aad u tiro badan oo ka mid ah qaraabada Nuur, Allah ha u naxariistee, iyo dadkii dariska la ahaa. waxayna sheegeen inay saaka war heleen dhacdadan naxdinta leh. sidoo kalena waxay sheegeen in ninka dilka geystay uu ka baxsaday goobtaasi. dadka ayaa sheegay in marxuumka dhintay uu ku dhaawacnaa 16 meelood oo ay kaga taalay toorey, taasoo jidhkiisa oo dhan meel la taabto aanay lahayn maadaama ay ku yaaleen dhaawacyo aad u badan. dadka eheladiisa ayaa sheegay in saaka loogu soo kacay isagoo meyda, sidoo kalena uu nafaxay dhiigbax darteed. dad goob joogayaala ayaa sheegay inuu dilka geystay nin u shaqayn jiray oo u soo qaban jiray waxa uu baahdo maadaama uu naafo ahaa, sidoo kalena lugaha iyo gacmaha uu naafo ka ahaa. ehelada marxuumka ayaa sheegay inay ciidamada dowladda gacanta ku soo dhigaan maadaama ninka baxsaday. dhacdadan naxdinta badan ayaa mid laga naxo maadaama qof naafo ah waayeela loo dilay si bini'aadantinimada ka baxsan, sidoo kale jidhkiisa dhammaan shabaq laga dhigay toorey ilaa uu ku nafbaxay. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. daawade aan u wada ducayno Aabba Nuur, ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo. fadlan muuqaalkan sii sheer garee si loo soo qabto gacan ku dhiiglahan arxanka daran ee aabbaha naafo ahaa tooreyda 16 jeer la dhacay. fadlan qaybta hoose commentigana aan ugu ducayno dhammaanteen. waxaa kaliya aan awoodnaa ayaa ducada oo kaliya.